صوت هذا ماليش مقلع مقل مجرى صوت هذا صوت هذا صوت هذا ماليش مقلع مقل مجرى هورت ملا مقلع. السلام عليكم. الصوت هذا معناته قضبة حساسية ربا إنا كهالله إن شاء الله تعالى دائما مقشان معناته صومالي من نمي وباهنتا صومالي من نمي وباهنتا صوت هذا دي أي مقشان هذا وما سنتين dadkan waxaa leeyahay soo dhawaada waa maasantihiin mahad aadan cali sidoo kale fuaad salaad maasha allah xogaa waa isdiyaarinayaa dadkan waa sugaynaa waxyar waxaan rabaa inaan xaqiiqada siyaasadda dhabta ah maanta inaan ka hadlaan rabaa insha allahu tacaala sidee wax u jiraana hala sheergareeyo dadku ha wada gaaro insha allah ibrahim waa ku salaama maasha allah muneer sidoo kale akhyaarta waa la dhan yahay fawziyo maasha allah dhammaantiin waa idin salaam horta aada u mahadsantiin kole brian livekan kusoo bata waa la isugaya umalaynaya waxaan rabaa siyaasadda guud inaan horto marka hore dhammaantiin waa idin salaamay inta meesha ku jirto iyo inta daawo doontaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu rabnaa midnimo soomaaliya inay midowdo soomaaliya inay mid noqoto siyaasadduna maadaama ay sal lahayn ay maalin walba noqonayso qodobadii hadda lagu soo dooday oo looga soo shiray dhuusa mareeb wax badanaa iska beddela dadaa marti dad sooray soo dhoweeyey wakti geliyey dhaqaalo ku bixiyey si ay soomaali isugu timaado oo loo helo xal loo helo iyadoo laga maqan yahay weli waa dadaaleen laakiin wixii dhan waxay noqotay hadda in lagu kala tago meel cidlaa in la soo istaago ra-iisul wasaariyaa la cunay horta si fiican u hadlay maasha allah jazakallah khayr allah siiye waxa waaye waxyaabaha aan ka sugaynay iyo nabad iyo nolol waxyaabo badanaa laga sugayay arrimaha aan rabnin hadda inaan rabo inaan ka hadlano waxaa ka mid a doorashooyinka waxaa la yidhi qof iyo cod baarlamaanku way degdegeen hadduu ra-iisul wasaarihii oggolaaday in doorasho ay waktigeeda ku dhacdo ayaguna ay ansixiyeen qof iyo codkiina aan laga soo shaqaynbo oo aan qofna la diiwaangelin qofna laga hadlin ee sheegay aan national ID la samaynin oo aan loo sii gogol xaarin ayaa waxaa la yidhi waxaan samaynaynaa maxaa la yidhaahaa qof iyo cod way suurtogeli weysa waxay noqotay in ayagii la waco dhuusamareeb la isugu tago
okay ma xumo haddii la isugu tegayna wala hadalaa ka dhacay waa la wada hadlay oo dana guud iyo mid gaar ahaaneedba wixii la isku sheegaba wixii meeshaas ka soo baxano maalintii ay shirka isugu wacdaynayeen gobolka banaadir waa ka maqan yahay dad badanaa ka maqan shirka looma dhama ahayd laakiin hadda wixii dhan waxay noqotay in lagu kala tago because xukuumaddii fulin lahaydba waa la casilab guddoomiyihii baarlamaanka aad ugu fudaaday warqada asaga uu wato meesha ka akhriyey codka lama tirin hebel iyo hebel iyo hebel hebel lama dhihin dadkii mooshinkeena lama sheegin okay rasuuli waa la tuuray okay maxaan rabnaa marka soomaali hal mid aan kala daarmaa horta hal mid inay iga dhegaystaa aad u jeclahay inaanan ogolaanin in qof uu meel inta iska yimaado ama nin jeclaysi inaysa dadka soomaaliyed inaysan gelin waxaan rabnaa waana horumaraan gaarnay waa dadaalnay 4 sanaba inaan qof dooranno sida rabo ha lagu doorto qof iyo cod haddii la gaarsiin karo waa la gaarsiin waaye okay si dadban ha lagu doorto ma xumo raalliyan ka nahay waxaan raalli ka nahay oo aan rabaa dadka inaan baraarujiyo aan u sheegaa waxaa ka mid a dadku in mar walba ay u taagnaadaan 4 sano isbeddel waddanka inuu yimaado inuu waddanka isbeddel yimaado uusan kaliya taliya dambe uusan jaanis helinba ummadda soomaaliyeed dib dambe isan ugu soo noqon nin kaliya taliya waddanka qabsado okay hadda waxaan rabaa inaan hal mar dhaho madaxweynaha inaan ka hadlo maxaa u diyaarsan gobollada dhan miyuu haystaa ciidamada hadda waddanka jooga ciidamada ka xoog badan miyuu haystaa amison ciidamo bedeli kara miyuu haystaa meel walba ma gaarsiin karaa qof iyo cod gobol walba ma qaban karaa waa maya okay hadduu intaas horreynimadaas uu leeyahay waxaasoo dhan uu qaban karo waa ku taageeri lahayn dadka soomaaliyeed oo meel walba uu qabto oo qofki uu dadka uu gaarsiiyo cod iyo maxaa la yidhahaa iyo qof okay dadku taageerada meel cidlaa la iskama taageero mugta waxaa fiican qofka waxyaabo socda ama waxa dhacaya ama wax qabadka qofka inuu ku taageero mucaaradkana lama rabo mucaarad oo mar walba iska soo taaganna ma loo baahno waxaan u baahannahay inaan xaqiiqdii ka hadalno horta okay dowladdan ma gaarsiin kartaa qof iyo cod muddo yar hadda u harsanba muddada yar oo u harsan tahayna waxaa la yidhi aan mid dadban aan aadno doorasho aan dadban aan samayno okay aan samayno ma xumo waa la samaynaa samayntii marka hadda waxay noqotay golihii ka shaqayn lahaa guddigii loo saaray wixii oo la rabay in laga tashto dhammaanba hadda waxay noqotay dhusmareeb in lagu caasiyo dadka reer dhusmareeb ama gobolka mudug in lagu caasiyo okay kuwa doorashada waxaan rabaa guddiga doorashada inaan wax yidhahnaa maxay u diyaariyeen qof iyo cod yaa la diiwaangeliyey sanduuqyada xaggee la dhigaa sanduuqaa la dhigaa sanduuqa yaa ku ridahay yaa kuu qoran yaa kuu diiwaan gelsan yaa rajiis garaysay nationalka dadka detailkooda yaa hayo gobollada yaa xoreeyey waddanka gacantuu ka baxay mar walba gacanta ka baxay laakiin waddanka wuxuu ku socday wada tashi dib u heshiisiin annagu ma gaarin weli soomaalida dowladnimo weli ma gaarin wax badanaa noo dhimo waxaan rabnaa marka dib u heshiisiin inay sii socoto in xisaabta lagu darsado mar walba waddanka dib u heshiisiinuu ku jiraa dib u heshiintaas maxay tahay marka walaalayaal seen yeelnaa maxaa noo hogbo maxaa noo qabsoomay maxaanu qaban karnaa maxaan qaban karnaa seen ku tashannaa see dadkan shacabkan ku gaarsiinaa dowlad caadila oo nabada oo dalka waddanka uu xoreeyo see dowladnimo ku heli karnaa marka waa dib u heshiisiin weli ilaa hadda waxaan rabnaa dib u heshiisiin inay socoto waa laga weecday dib u heshiisiinta dadka lalama tashanaya lihi waxba annagaa samaynayna lihi qof iyo codaan gaarsiinayna lihi shacabkaan u dhiibanayna lihi okay ma laga shaqeeyey lagama shaqeyn dadka waa wada indho dadka dhan soomaalida waa wada siyaasi qof walba way hadle qof walba waa ujeedaa wax meesha ka socda maxaan rabnaa marka inaanan foodo la kicin dhibaato dhicin ee magaalada muqdisho shalay qadka dhan waa laga jarta buuq inuu meesha imaan waxaan rabnaa inaan helno waddan oo horumarkeeda iyo dowladnimadeeda dadku ay ka shaqeeyaan dowladduna ay ka shaqeyso sorry raalaada dowladduna ay ka shaqeyso walaalayaal weli annagu ma dhammayn walaalayaal ma dhammaan ilaa hadda hubkii dadka lagama qaadin shacabkii ii sheegay meel walba
dadki way hubaysan yihiin hubka dhigays lama samaynin ciidamada la iskuma dhafin dalka hal gacan kuma jiro qolo walba maamul gobol walba meel walba ciidan ina leedahay aaminsan tahay iyada iyo qabiilkeeda ka taliya iyo qabiilkiisa lama imaan karo dowladda kama tali karto ma tigi karto sidee marka ku gaarsiinaa qof iyo cod marka waa la soo degdegay inkastoo siyaasadda 4 sano hadda aan dib u dhacleen waxaa noola dhisay waxyaabo oo mar walba in la dhiso mudnaay oo mar walba in la dhiso ay noqonaysaba ama dowlad walba ay timaado dowlad walba xil walba waxbaa dhismaayo sooma marka 4 sanaba nin walba inuu wax wanaagsan sameeyo oo horumar uu gaarsiiyo inay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed aan ku baraarujiyo ee ka dhiijiyaan ama ku dhawaaqaan ama dadka maqalsiyaan isbedel 4 sano qof walba 4 sano leeyahay 4 sano wuxuu sameeyay taariikhda xusayso ninkaan wax sameeyna waxa uma sameeyay 4 sano u dhamaanaysa laakiin in la iska soo taagnaado ma qabno annagu tabraalana kamay dadka reer Muqdisho waa dhibantiin dhibaa dushiina dul saar dad badan haysan marti badan haysan dhibaato badan haysan dowlad walba aad garab u tihiin laakiin xaqiina ilaa hadda ma aada helin okay laakiin maxaa sameynaa marka walaalayaal in la bilaabo dib u heshiisiinta in la soo celiyo dadku in wada hadal iyo wax qaybsi walaaltinimo iyo ishadal iyo isfahan in wax lagu qaybsado nin walba wuxuu ku soo kordhi karo inuu ku soo kordhiyo sama laakiin loo baahan in qof walba asagu wuxuu rabo iskiila ay maqaamka gobolka lama dhisin galmudug waa dadaashay maanta hadda qorqor waxa maro ka soo degay wixii shaqadii iyo dadaalkii iyo Soomaalida oo isku keenay iyo dawladda iyo wada hadalsiiyay maamul goboleedyada inta mucaaradku ku ay dawladda wixii lagu yisiiyay in hadda waxay noqotay waxba kama jiraan sababtoo hadda iyo haddana ra'iisul wasaaraha la magacaabo ra'iisul wasaaraha waa qalad laakiin cod wanaagsan iyo si wanaagsan u hadal dalka anaa u turaayo laakiin wax sharci ma wax walba anaa ogeey anagoo og inaan sameynay ii sheegay dadaal oo aan dadkii isku keennay oo aan dhahnay doorasho dadku waqtigeedii ay ku dhacaysaa asagoo og baarlamaanku inaan mooshinka ka doodin waxyaabo badan asagoo og ayuu haddana iscasilay wuxuu dalkan u turaya ninka raba inuu jaab ku shubto dadka Soomaali jaabku ma laguma shuban karo Soomaali waa dad indhacad waa dad dhib badan waay walaalayaal waxay ku leeyihiin maana kuma laha in cadays iyo xoog iyo wax kuma laha okay hadda maxaa sugnaa marka waqtigiisa inuu dhamaado inuu ra'iisul wasaaraha uu ku dhamaysto ka xigeenka ah hadda xilka loo dhiibay yaa kaloo qabanaya calaaqaad kale iska soo bixi doona because rag soo shaqeeyay oo 3 sano iyo something soo shaqeeyay oo shaqadoodii wixoodii meel ilaa loogu kala tagay dadaa gacanta u soo taagana rabo inuu qabsado inay qof uu maanta ra'iisul wasaare isku soo sharaxo waajib ma aha sida dadka siiba hawiyaha inay isku soo sharaxaan wallahi waa ceeb iyo foolxumay u tahay in loo daayo ra'iisul wasaarihi waa la garaway hadda ma haystaan 4 sano qof iyo cod haddii xilka 4 sano ay dhamaato qof waddanka haddaan doorasho la samaynin oo aan doorasho dadban la samaynin oo aan dadku ay wax dooran dowladdaas way dhacday December baarlamaanku waa dhaca markuu dhaco baarlamaanka dowladduna waa dhacay madaxweynahana waa dhaca markaas maba sameynba hooshii doorashada ma sameyn iyo madaxweynuhu noqonaa marka waa maya marka waxaan leeyahay dadka reer Muqdisho dhibaa ku jirtiin dhibkiina iska dulqaata kacdoonna maaha qofna ma raba inaad kiciyo mid siyaasadeed bis la tashi iyo la xisaabtan siyaasadeed in dadku la yimaadaan la xisaabtan bis daase wax kale oo meeshaad oo bannaan ma laha dadkiina qaylin yaa la waxa la jijibin dalka adaa iskale deegaanka adaa iskale waddanka Soomaaliya iskale wax walba oo la dhisana dalka loo dhisay qof shakhsi ma dhisan wax walba hala dhowro oo dawladda ay leedahay ciidamadii amar badan ma qaataan waxa lagu leeyahay ii sheegay askariga markuu askari yahay waa inuu taliyihiisa amarkiisa qaataa waa inuu magaciisa dhegeystaa ma hayno waxaan leenahay marka qof iyo codaan gaarsiinayna marka qof iyo codka shaqo badan ay u baahan tahay maahan easy please waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha u turaan dalkooda iyo dadkooda ha u turaan sida ra'iisul wasaaraha uu asagu uu gartay inuu asagu iscasilo isagoona si sharciyan aan looga qaado xilka asaga gartay inuu dadkiisa iyo shacabkiisa u turo oo asaga iscasilo soo
maadaama ay ka daba shaqeeyeen okay annagu maxaa rabnaa marka doorashaa rabnaa dase 4 sano way dhamaatay 4 sano soo sharax haddana hal lagu doorto laakiin ma rabno in foodo iyo problem iyo buuq dambe iyo magaalada iyo dadka Soomaaliyeed dowladnimadana oo dhibaato laga soo maro intaas la soo ilaalinay oo dad badan ay naftooda ku horeen oo intaas la soo kabay walaalayaal lagu soo hay in maanta haddana la yiraahdo foodo iyo hebel ana wuxuu ku qabsanayo maxaa u diyaarsan hadduu waddankana wada qaban karo gobolada wada qabsan karo meel walba wada qabsan karo oo anigaas uu haysto uu ciidankaas uu leeyahay oo Amazon uu ka maarmo oo internationalka uu ka maarmo oo wax walba uu ka maarmo waa la soo dhaweeyay laakiin ma bahaynaba nin waxa sameyn kara ma laakiin maxaan u baahna dadka nin isku celin kara dadka isku keeni kara isku soo celin kara bas oo dhigi kara walaalayaal kali aan waxaan dadkan u dhisnay dadkan 30 sano dhibaatadan baahidan ku jirta oo dhaqaalahooda iyo macdantooda iyo waddankooda iyo badooda la iska qaadanayo oo problem ayaga maalin ku jiro inaan war dadkan see loo badbaadiyo inay dhahan maana inaan wax foodeyno inaan dhibaato hadda abuuro looma joogo marka raalli ahaada waxaan idiin sheegayaa wax walba waqtigooday dhacayaan dadkana inay ogaadaan isbeddelkaas inaan u codeyno mar walba annagu isbeddelaan rabnaa qofkii rabaa yimaado codkeena wuxuu ku midaysnaan doonaa isbeddel 4 sano oo lagu heshiiyey in la soo doorto nidaamkii la rabaa lagu soo doorto mudukorosti 6 bilood laakiin shaqo doorasho ay socoto waa wax la garta iyadoo la gaarin oo weli uu dowladda dhicin mudukorosti la raadinayo marka wallaahi aada ugu xumaay Soomaaliya aad u dhiban tahay okay news magaalada waxa lagu leeyahay ciidana meel ku xareysan raga goodoomay raga ay xil laga qaaday dhibaato yaana foodo iyo dhibaato iyo waxba la kicin ummadda Soomaaliyeed ha sugto waqtiga waa dhamaanaa hadduu dhamaado ayagana waa dhamaanaya doorasho imaanayso garab ha la siiyo ciidamada xoogga dalka garab ha la siiyo garabkooda ha la istaago ha ilaaliyaan waddanka sharafta iyo dalka iyo calanka ha ilaaliyaan intaasaan kusoo koobaya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadaan u mahadsantihiin inta i dhegaysatay iyo inta i dhegaysan doontaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu